waa habeenimo sabti axad ayaa soo gelaysa taariikhda waxay ku aasteysan tahay 17 bisha abriil 2022 qodobada xiisaha badan daawo doontana waxaa ka qayb noqonaya warar dhaca oo ka soo baxaya shirka ay wada yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka maxay labada dhinac isla garteen go'aan noocee ayaa ka soo baxay kulanka xogo muhiim ah ayaa daawo doontaana dhaqdhaqaaq ciidan iyo kulamo gooni ah ka socda xaafadda Shirkule Saadaq John oo lagu tashkiilinayo bilowga dagaal cusub xog ku saabsan abaabulka socda kama marna ciidanka daacadu waa taliyo hore booliiska gobolka Banaadir waxay sameysteen difaaciyo cusub baqdinta ka jirta Shirkule iyo suurtagalnimada ah in madaxweyne Farmaajo uu maxkamad ciidan saaro Saadaq John iyo abaabulka beeshiisa aad u xoogeystay kama marna magaalada Muqdisho waxaa ku kulmay madaxweynaha Hirshabelle iyo xubno ka mid ah midowga musharaxiinta iyo shakhsiyaadka kale xogta kulankan oo looga hadlay xaaladda dalka ka soo cusboonaatay iyo codsi ka yimid madaxweyne Farmaajo haddaba muxuu yahay codsigaasi baarlamaanka Puntland oo dhageystay khudbada u jeediyay Saaciidanena waxay cod gacantaaga uga soo horjeestay muddo kordhintii baarlamaanka Soomaaliya u sameeyay hay'adaha dawladda sidoo kale kama marna warbixin ay soo saartay hay'adda Crisis Group waxa lagu sheegay in Soomaaliya ay lugaha la gashay marxalad halis ah haddaba maxay tahay sababta iyo xogta hay'addu ay baahisay dabadaas iyo sidoo kale kama marna sheekooyinka taagan ee ku saabsan xaaladda dalka ka soo cusboonaatay haddii tahay markii ku horeyso channelkana soo booqato fadlan subscribe noo saar muuqaalkana like garay gambareelkana furo mahadsanid ayaan ku raacinayaa waxaan ku bilaabayaa xalanne waxaa ka qabansoomay shir u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka shirkan waxa uu yimid ka gadaal markii la isku mari waayay isla markaana hanjabaadida iyo sidoo kale ka soo horjeesiga muddada 2 sano ee baarlamaanka madaxweynaha ugu daray ay korortay ayuu ku qabsoomay awgeeda beesha caalamka ayaana u yeertay madaxweyne Farmaajo xalana ayuu tagay waxaana kulan ay yeesheen albaabada ay u xireeyeen xogo badan ayaa kulanka ka soo baxaya waxaana Farmaajo uu la wadaagay doorkiisa kaga aadan qorshaha muddada 2 sanaha ee doorashada dalka lagu aaday isla markaana awoodda shacabka loo gacan gelinayo iyagoo xubnaha beesha caalamkana u gudbiyay madaxweyne Farmaajo qodobada ay isleeyihiin waxa ay yihiin kuwa caqabada ah isla markaana go'aanka kama dambaysta ay ka qaadeen muddo korinta loo sameeyay xogahan helino waxa ay tibaaxayaan in beesha caalamku go'aankooda kama dambaysta ay u sheegeen madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ilaa xilligan aan ku qanacsanayn go'aanada kala duwan ee xubnaha beesha caalamka ka soo baxaya waxaana lagu sheegay in go'aanka kama dambaysta la dhaqan gelin doono haddii uu ka laabo waayo muddo kororsiga baarlamaanka Soomaaliya uu sameeyay isla markaana taageerada uu muujiyay waxaa sidoo kale lagu wargeliyay magacyada liiska xubno ay ku jiraan oo Farmaajo taageersan isla markaana la sheegay in cunaqabateen dhan waliba ay la kulmayaan waxaana xubnaha ku jira madaxweyne Farmaajo waxaana lagu sheegay in xayiraad iyo xubnahaasi ay la kulmi doonaan cunaqabateen dhan waliba iyadoo laga xusay gudoomiyaha golaha shacabka labadiisa ku xigeen Cabduuli Ibrahim Muude iyo Mahad Cabdalla Cawada taas oo keentay in Farmaajo qalqal xoogan uu muujiyay isla markaana xogo muhiim ah halkaasi uu ka sheegay gaar ahaan suurtagalnimada in uu dalka doorasho gaarsiiyo isla markaana uu ka gaabsanayo ku laabashada tendada afisyooni shirkii wada tashiga doorashooyinka maadaama uu horey buu sheegay in shirkaasi mar dambe uusan ku laaban doonin waxaa lagu wadaa dhinacyada qoraale kala duwan ay ka soo saaraan oo ku saabsan xogta kulankiisa afgaradku dhameystiran maadaama la wada sugayo isla markaana dhagta loo taagayo kulankaasi waxaa ka soo baxay waxyaabaha ku soo kordho waa daawo doontaan wararkeena soo socda ayaana kaga bogan doontaan markaana Saadaq John ayaana eegeynaa iyo wararka ku saabsan taliyii hore ee booliiska gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan Saadaq John ayaa lagu waramayaa in dhufeysyo uu ka qotay xaafadda Shirkule ee magaalada Muqdisho dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ayaana halkaasi ka jira waxaana Saadaq John iyo sidoo kale xubnaha la socdaba ay u diyaarsan yihiin in iska caabin ay ku sameeyaan duulaan kasta oo dowladda federaalka Soomaaliya ku qaado xaaladda ayaa aad u kacsan waxaana dadka deegaanka ay muujinayaan cabsi xoogan maadaama
ciidanka dowladda Soomaaliya laga yaabo markale inay soo rogo celiyaan islamarkaana jarnaalku yahay mid weli go'aankiisaba aan ka laaban. Israasaaseen kooban ayay ahayd xalay markii halkaasi ay ku dhaxmartay ciidamada ammaanka iyo kuwa Saadaq John, inkastoo markii dambena xildhibaano daacad u ah islamarkaana ku beel ah Saadaq John halkaasi ay tageen oo warbaahinta ay kasoo muuqdeen. Marka aan eegno sida ay wax ku socdaan iyo sidoo kale kulamada kale ee dhinacyadaasi dhaxmaraya ee ku saabsan xildhibaanada saraakiisha kasoo jeeda beesha uu kasoo jeedo General Saadaq John ayaa noqday kuwo sii kordhiya. xildhibaano saraakiil kasoo jeedana dhinaca garabka Saadaq John waxa ay gaareen galabtan xaafada Shirkole. waxa ay sheegeen wararka in taageero iyo sidoo kale garab istaag ay u muujinayaan Saadaq John oo beesha Habargidir kasoo jeeda islamarkaana si cad ay u sheegeen in duulaan madaxweyne Farmaajo uu ku yahay beeshaasi uu kasoo jeedo Saadaq John. xildhibaanada iyo saraakiisha ayaa waxa ay shir jaraa'id kasoo muuqdeen ay kaga hadleen xaaladda dalka iyo sidoo kale adeegsiga ciidamada dowladdu ay sheegeen madaxweyne Farmaajo si qaldan uu adeegsanayo. waxay sidoo kale carabka ku dhufteen in xaafada Shirkole ay tahay xaafad degan jabi colaadeedna ka caagan haddii isku day walbana uu la sameeyo ee lagu doonayo Saadaq John lagu xiro ay iska caabin doonaan. xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Odowa oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka xalayna tagay Shirkole islamarkaana warbaahinta kasoo muuqda qoraal uu soo qoray bartiisa Facebookna ku daawacay waxa uu ku sheegay in madaxweyne Farmaajo uu diyaarinayo in la xiro gabi ahaanba maxkamad ciidan lasoo taago Saadaq John. waxa uu sheegay in xogtaasi uu ka helay xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxaana lagu eedeyn rabaa Saadaq John dambiyo dagaal iyo sidoo kale amar diido ciidan in uu sameeyay. waxaana taas loo daliishanayaa 12 Abriil amar diidadii uu sameeyay islamarkaana uu ku hor istaagay baarlamaanka Soomaaliya inkastoo kulankii golaha shacabka markaasi uu qabsoomay islamarkaana ay ka dhalatay muddo kordhinta 2 sano ee loo kordhiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. xaaladda ayaa laga yaabaa in maalmaha soo socda ay kasii darto islamarkaana jawigu uu noqdo mid colaadeed oo saansaan colaadeed hadda la dareemayo laga yaabo in ay dhawowdo marka loo eego shitaarmada ku socota Saadaq John oo xubnaha siyaasiyiinta ay ku doonayaan in uu bilaabo dagaalka looga soo horjeedo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ciidamadiisaba. markaana magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa kulan ku yeeshay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe, senator Muuse Suudi Raxow iyo xildhibaan Cabduqaadir Cusub Cali. kulankan waxa uu ka qabsoomay hoyga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana looga hadlay xaaladda dalka uu marayo sidoo kale marxaladda kala guurka iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee magaalada Muqdisho ka soo cusboonaaday. kulankan waxa uu gogol xaar u yahay kulan weyn oo xubnahan ay yeelanayaan iyo sidoo kale xubnaha kale midowga musharaxiinta iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor kaas oo fariin adag ka sida madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. waxaana lagu wadaa in xubnahan lagu wargeliyo in Farmaajo kulan uu dalbaday uu la yeesho xubnaha mucaaradka balse lama oga kulankaasi inay aqbali karaan iyo in kale. balse xogaha aan helayno waxay sheegayaan in kulanka marka uu bilaabo ay ka doodayaan arrimo waaweyn oo ku saabsan sida laga yeelayo xaaladda soo cusboonaatay muddo kordhinta iyo sidoo kale kulanka uu dalbaday madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo qayb ka ahayd xogta uu la wadaagay wakiilada beesha caalamku ah in xubnaha mucaaradka kulan uu la yeelanayo islamarkaana wax walba sidoodii ay ku sii soconayaan. dhinaca kale baarlamaanka Puntland kulan ay yeesheen waxa ay kaga soo horjeesteen muddo kordhinta baarlamaanka Soomaaliya uu sameeyay. khudbad uu jeediyay Saciid Dani ayaa waxa laga dheehan karay sida xogaha aan ku helayno in go'aan kama dambaysa Puntland ay ka qaadatay muddo kororsiga madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo loo sameeyay.
kulanka baarlamaanka Puntland waxaa xaadirtay ilaa 52 mudane waxaana qaadacday muddo kordhinta loo sameeyay ama baarlamaanka Soomaaliya uu sameeyay 49 mudane hal xildhibaan ayaa diiday halka laba xildhibaan ay ka aamustay kulankan cashir gudoominaya gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyadoo Saciid Dani iyo sidoo kale ku-xigeenkiisana halkaasi goobjoog ay ka ahaayeen markaana warbixin ay soo saartay crisis group hay'adda la yiraahdana waxa ay sheegtay in Soomaaliya ay lagu hala gashay marxalad halis ah khilaafka daba dheeraada ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa galay ama dalka geliyaba marxalad halis ah sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda International Crisis Group oo xustay in ismariwaagu isku bedeli karo gacanka habal xiisada ayaa cirka isku shareertay markii 12 Abriil golaha shacabka muddo kororsi 2 sano u sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mucaaradka Puntland Jubbaland iyo beesha caalamkana waxa ay isku mowqif ka noqdeen muddo kororsigaasi golaha shacabka uu sameeyay crisis group oo tibaxday mucaaradku dhankiisa qorsheynaya geedi socod babar socda kan dowladda federaalka Soomaaliya waxay taageero buuxda muujinaysaa ama ay ku sheegtay in ay u hayso in wada hadalka iyo wada xaajoodida la sii ambaqaado saaxiibada dibadda ee Soomaaliya uu hogaaminayo midowga Afrika oo ay taageerayaan Mareykanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo midowga Yurub waa inay u istaagaan abaabulida iyo sidoo kale hogaaminta wada hadallo cusub oo dhexmara dhammaan daneeyaasha si loo dejiyo qariirad cusub oo loo mariyo doorashooyin waqtigooda ku dhaca ayay tibaxeen kooxda xasaradaha caalamiga ah diblomaasiyiinta ayaa hore ugu dhawaajiyay inay qaadayaan talaabooyin ay ka mid yihiin dib u eegista xiriirka ay la leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya xayiraad ku soo rogidda madaxda caqabada ku ah dadaalada xasiloonida iyo sidoo kale xoojinta taageerada dhaqaale xaqiiq ahaan si kastaba ha noqotee doorasho kasta way u baahan tahay in Soomaaliya lagu qabto gaar ahaan iyada oo laga gudbayna xeendabka heshiiskii 17 September iyadoo la wada og yahay in doorashadu ayna toos ahayn isla markaana ay suurtagelinayaan shacabka ay ka qayb qaataan haddana jawiga amni ee maanta jira ee al-shabaab dhulka balaaran koonfurta ku haysta ayaana suurtagelinaynin balse crisis group waxay si weyn ugu talisay xoojinta doorka beesha caalamka ee dhexdhexaadinta madaxda Soomaalida in xal uu ka imaan karo in Mareykanka uu Turkiga qadar u kaashto kobcinta mowqifka Farmaajo Ankara Dooxa oo wali aan la cadeyn mowqifkooda muddo kororsiga ee muranka badan u dhaliyay madaxweyne Farmaajo loo sameeyay ayay Mareykanka ugu taliyeen ama ugu baaqeen kooxda xasaradaha in labadaasi wadan isagoo adeegsanaya madaxweyne Farmaajo miiska wada hadalka lagu celiyo Soomaaliya oo ah colaada ka soo kabanaya ayna dabacsan yihiin hay'adihiisa dowladda ciidamaduna wali ku saleysiin hanaanka qabiilka ayaa hadda laga cabsi qabaa in meesha uu taagan yahay uu ka gudbo isla markaana dhanka burburka uu cagaha la galo taas oo burinaysa nidaamkii dowlad dhiska iyo sidoo kale xasiloonidii Soomaaliya muddo laga soo shaqeynayay gudaha qodobkaas ay u dambeeyay warka habeenay janaalka xulashada roobka aad ku maasan tahay daawashadada haday tahay markii ku horeysay soo boqod fadlan subscribe noo saar muuqaalka la garay gambaleelkana furo maasinid ayaan ku leenahay inta ku kulmi doono warceenkan oo kale inta anigii bahda warka igala qayb qaabatay tabin diyaarin iyo farsamo waxaan leenahay nabadgelyo ramadaanul kareem